Cutubka shanaad diiwaangelinta xogta. Jawaab-bixiyaasha ugu horreeya ee oggolaanshaha haysta waxay door muhiim ah ku leeyihiin ururinta xogta hore. Marka meydka la soo helo oo sumadda gaarka ah ee loo qoondeeyey loo sameeyo xogta oo ay sawirro ku jiraan, waa in isla markiiba haddii ay suuragal tahay si ammaan ah looga soo ururiyo goobta, ka hor inta aan la lumin fursado qiimo leh oo uusan meydku noqon mid aan la aqoonsan karin. Nidaamka xog ururinta wuxuu ka bilowdaa goobta oo sawir laga qaado, taas oo ah qasab muhiimna u ah aqoonsiga meydka. Marka lagu daro xog si sax ah loo diiwaangeliyey, meyd kasta ama qayb kasta oo meydka ka mid ah waa in si gaar ah loo maareeyaa. Sidoo kaleetana iyadoo oggolaansho laga haysto, baare ka socda booliska iyo khabiirka forensiga laga qaadaa goobta. Marka la tago goob ammaan ah, waxaa laga nadiifin karaa wixii dhiig, dareere ama wasakh ah si sawir habboon oo muujinaya aqoonsiga sifooyinka iyo dharka looga qaado. Sumadda gaarka ah ee meydka waa inay ahaato mid si cad looga akhrin karo sawirrada oo dhan. Waa muhiim in si sax ah loo qaado sawirro si fiican u muuqda oo meydka ah. Marka loo eego dhinacyada lagu taliyey ee kaamirada, oo ah sawirro marka la qaadayay la isticmaalay heerarka muuqashada habboon. Waa in la isticmaalaa foomka macluumaadka meydka si loo ururiyo xog, taas oo la mid noqon karta macluumaadka ku saabsan kuwa la la'yahay ama loo malaynayo inay dhinteen. Sifooyinka guud ee kale iyo kuwa gaarka ah waa in la ururiyaa, oo ay ku jiraan faahfaahinta sifada, meesha gaarka ah ay jirka kaga taalo, iyo midabka, qaabka ama cabbirka. Sidoo kale waa muhiim in qof loo xil saaro inuu diiwaan geliyo macluumaadka muhiimka ah sida jinsiga, dhererka, da'da, midabka timaha iyo calaamad kasta oo gaar ah. Foomka macluumaadka meydkana lagu buuxiyaa si loogu diro mas'uuliyiinta ku sugan xarunta dhexe. Tani waxay hagaajin kartaa dadaallada aqoonsiga. Wixii alaab shakhsi ah waa in laga saaraa oo laga soo diiwaan geliyaa qolka meydka. Kadib sawir uu cabbirka iyo kiis lambarku ay la socdaan laga qaado oo lagula kaydiyo meydka oo ku dhex jira bacda meydka ama meel kale. Kuwan waa in lagu qoraa meesha hoose ee sumadda gaarka ah ee meydka si gacan looga geysto aqoonsiga hadhow dambe. Haddii foomka dadka la la'yahay lagu arko calaamado iswaafaqid ah, ehelada murugaysanna la weydiisto in ay aqoonsadaan meydka, waa in la tusaa sawirro tayo sare leh oo la qaaday ka hor inta uusan meydku baabi'in, si loo kordhiyo ku kalsoonaanta, niyadjabkana loo yareeyo. Sawirrada dharka iyo alaabta ayaa sidoo kale la tusi karaa. Ugu dambayntii, aqoonsi la hubo waa in ay xaqiijiyaan khubaro dhanka forensiga ah oo aqoon u leh. Mas'uuliyiinta dowladduna ay sharci ahaan u oggolaadaan ka hor inta aan meydka lagu wareejin qoyska. Meydadka aan la aqoonsan karin waa in si ku habboon loogu kaydiyaa meel dhulka ka sarraysa ama xabaalaha nidaamsan raadraaca leh ee la calaamadeeyey inta aqoonsigooda la sugayo. Dabcan, aqoonsiga saxda ah ee meydad badan ayaa u baahan in la kaashado khubaro iyo aaladaha loogu talagalay forensiga. Laakiin guusha tallaabooyinkan waxay si weyn ugu tiirsan tahay tallaabooyinka muhiimka ah oo ay goor hore qaadaan jawaab-bixiyayaasha ugu horreeya.